Ramadan Kareem dhammaan ummadda muslimka meel kastoo aad joogtaan waxaan ku guda jirnaa bishii barakaysanada Ramadan tobankii dhexe ee dambi dhaafka waxaan eebba idinka baryaa in Ilaahay naga yeelo kuwa dambigooda la dhaafay ku soo dhawaada warbixinadeena gaagaaban caawa oo Jimca aan idinka iyo warbaahinta wargeyska City aan ku bilaabay qaar kamid ah odayaasha ku dhaqan qarafiya nawaaxigeeda ayaa warbaahinta wargeyska City la soo xidhay tabashooyin ay ka qabaan bixinta raashinka WFP-da iyo sidoo kale raashinada kale halkaas yimaada waxayna ka cabanayaan in si habboon aan loo maareyn oo ay ku qatan yihiin waa sida hadalka u dhigeen waa kuwan iyagoo warbixintaasi nala soo wadaagay waxaan nahay hunguri dad abaareed dadkii soo barakacaan dadkii degmadaan dadkii wadaniga galayaan haruurka cisho walba imanay waxa arsaaqoon aan koleeyna waa mid ee waxaan u soconay waxaan nahay hunguri waqti kastana waa in la waqti walba waa la cunaa waxba arsaaq kuma lihin baadiyaan nahay dad un babaholo u daruursho waan qirannahay deesaan u soconay waa sida maatanna naftu waa kun iyo madigi bay joogtaa xoolo wax laga dhaqaaqay waa la waayay geel baa ugu awood roolaan dhulka uu ruqlay wada aragtay wixii kale ka sii diitaa in xiraadin buu hamee kileeya halka ku bitay ka soo baxana shadii iyo jooga qabalaha aan baa joogna qabala kale nooma sheego waxaana uu socdaa oo bil kasta dadkii aan la soconay halka kala soo barakacnay magaalo joogay oo balasiya qabalahaasi waa ka tuulay haruurka dhigto afarta tukaan baa laga jiimataayo loo googooyay waa kan tuulay dadkiisa loo kala gooyay afarta tukaan baa laga sii jiimataa lacag waxa yar la shacabka yar magaalada jooga lagu daadaadiya wixii miyahay magaalada ka baxsan waxba laga ma sii waa yeelo ku qaday duq naagi way ku qaday dameel kasta warkayga naloo gaarsiyo leeyahay noo gaarsiyo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaaga saddex shay sida weyn Xuseen Giir boqor raba aniga la yiraahdaa dhimashadii garmul 4 sano way tahay ambasada 5 sano way tahay hayaan halka degnay halka dadka iyagii deegay aqalka mid ah tukaanka mid ah tahay ciidanka baabac fadhinayay iyo halka ahaanay waxa sharaacina inuu ku degay eemka raashinka istaba jooga saa isku daba imanaya annagu waan ku qatannahay afarta yar tukaana meesha laga dhisay uun ragga maamul baaniin nahayna leh Xasan Fakiir weyn uun baa sida u kala goosto iyaga uun baa kala goosto gaariga ay siisiga ma dib loogu raraayo halkii uu ka yimid baa lagu cishay degmadana waad kaga cabatay kaga caban wax cabashadiina tabiyana waad weydeen noo tabiyana wala tabin waayay adna magacaaga guriga maanta waxa weeye walka in arrinka ay dhigan un baan dhigay walaalka naftu waa kun iyo madibay maanta naftu walaalka lagu tahay oo dadkii la soo qoray adhigiisii la kaxaystay ku col ka kaxaystay ku abaar ka rugtay una aha yaana haddaba tabashooyinkaasi ay soo dhigayaan ayaa waxaynu khadka telefoonka kula xidhiidhnay madaxa xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka ee degmadaasi Dayn mudane aadan oo ka jawaabaya tabashooyinkana waxa uu yiri sida tan mid baa jirto qabalayaal horta oo raashinka horta iman raashinka WFP maana waa emergency emergency-na meelaha loogu talagalay goobaha waxa loogu talagalay dadka ay yaalina barakaca xaaladdu ay dharigu ka dhaxsay xaaladdu serious ka tahay qabalayaashuna raashinkii WFP-ga ay wada leeyihiin degmada waxay leedahay 12 qabalay leedahay 12 qabalay leedahay qabalayaasha qaar waa qabalada dadka reeguuraagayo dadma degan qabalayaasha qaarna waa dad baa degan dadkii soo qaxay baa degan oo habeeraatay dadkaas wax shaqo iyo wax ganacsi ah haystaan ma jiro waxa ay iman bay dariga ku ritaan xabadna iibsadaan xabadna ay cunaan marka walaalo qabalayaasha qaar ay wali waxba u tagin inta u badan way wada tageen waxa jirta qabalaha gaaniya la dhahaa iyo qabalaha waxaan ku dhaadaanay bool la dhahaa aduu labada qabalaan jeclahay ayaa wali waxba u tagin oo raashinka emergency-ga aan geyn marka qaraf iyo nawaaxigeeda dadka barakaca raashin loogu waa dadka nawaaxiga qaraf iyo nawaaxiga dadka yaala waxa weeyaan raashinka dadka qabalaha qaraf waa dad aad u tiro badan oo ilaa 800 oo qoys ka badan yahay dadka marka maadaama dadku ay saa u fara badan yihiin hadda dadka yar meesha tuulada yaalo waa 400 oo qoys 400 oo qoys xeerana noo keenay dhowrka macnaha dhowrka 100 kiisho uma halka dabiisu siinaa kootadii oo dhamaystiran dadkii ay qaadanayeen ma aha
maalmahan oo dhanba cabashadooda ahayna waan gudbinay laayar gobol laayar deegaan waan gudbinay haddii ayna gaadhsiina waan rajaynaynaa waxayna soo gaaraan haddaba guud ahaan degmada Qaraf oo yaaliin barakacayaal aad u tiro badan isla markaasina ka mid ah dad goobi ay dadka ka soo barakacay Garbaciisa ay ku sugan yihiin ayaa waxay codsanayaan in raashinada gargaarka iyo sidoo kale dadka muxsiniintu ay ka warhayaan maadaama halkaas dad aad u tiro badan ay ku sugan yihiin isla warbixinteena ayaan ku guda jirnaaye qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Shinile ee adeega u soo doonta cusbitalka Shinile ayaa soo dhaweeyay adeeg bixinta cusbitalka waxaana waraysi la yeelanay qaar ka mid ah dadka adeega u soo doontay iyo sidoo kale hawlwadeennada والله سان مودينا ما هنا في كفي عن تاي سكفي عن يعني سكفي عن سلامركي ود waxaan ka soo doontay ishan bay xanuunaysa ilbaa xanuunaysa waa la ii jeexay waa lagu jeexay la qabtada waxaan yiri ishan hal eego in indhaha lagu eego sax yaan doonayay waa ka qaran sida indhaha lagu eego hadda sidee u aragtaa yaadeen lagu siinayo way fiican yihiin waxa ma arkay hore ka waran sidee ahaa inuu baa wax yar ka arkay haye ishii kale waxa kama arkay haye ima kana waxba yitro way fiican tahay si fiican baa loo arkay si fiican baa aygo sabaxan Naciima Cawaale Axmed Balida waxaan ka shaqeeyo MCH oo waliba qaybta hooyooyinka uurka lagu baaro ee nasiiba liidaan antenatal care hooyooyinka uurka ayaa lagu baaraa marka hooyada uurka markay noo imato horta visitka inay maraan weeyaan waayo caafimaad ahaantooda guud in la ogaado weeyaan wax walba haddana waaxdan in si fiican ula socdaan ilaa ma ay dhalmada ka gaarayaan weeyaan sababtoo ah xanuuno badan soo kale haddana maxay dhahay kiblowga naaqusi kara xanuuno badan oo la kulmi karaan marka baaritaankan iyo lasanaga shaybaarka maadaama isku xidhanahay iyo farmasiga waxay uga baahan tahay markan xagan uga darno xanuunkayga waxaan ku ogaan karnaa shaybaarka markay nooga soo celiyaan jawaabta ultrasound ayaan dareynaa ultrasound markaan u sii darno haday hooyadan de xanuun maxay dhahay cabasho ay ka keenayso xanuun ay leedahay xaga waaxda kale maxay dhahay waxa jira gynward baa jira waxa jira labor baa jira maternity-ga waxyaalo badan baa jira marka MCH markii leeyahay si kaliya kuma koobno magacaygu waa Cali Agobsiye qaybtan aan ka shaqeeyo waa qaybta emergency department ama qaybta gargaarka degdega ee bukaanada adeega degdega lagu siiyo waxaan ahay madaxa waaxda gargaarka degdega ama emergency-ga marka waaxdan waxay ka kooban tahay emergency triage bay ka kooban tahay qaybta reedka bukaanka criticalka la dhigay ay ka kooban tahay qaybtii mataqaanaa yelowga mataqaanaa ama qaybta cagaarka qaybta huruudda haween mataqaanaa dumarka ama waxa weeyaan ragga la kala jiifiyo pediatric emergency ku jira oo qaybta caruurta xagan la jiifiyo xilliga xaaladda emergency ku jiraan waxaa ku jira qaybtii kale procedure-ka ama mataqaanaa bukaanka adeega lagu qabanayo procedure-ka u baahan waxyaalaha mataqaanaa marka dhaawacyada iyo nabarrada ku soo dhacaan ayay ka kooban tahay marka waaxdeena waa waaxda gargaarka degdega mataqaanaa waxaas oo kala duwan bay ka kooban tahay bukaanada soo noo yimaada aad bay badan yihiin walow xilliyada seasonada ama waqtiyada kala duwan ay ku xidhan yihiin marka xilliyada waxay ku xidhan tahay hadba mar waxa jira ay baashan xumada dhanka fiifarto kale ay jirto mar mataqaanaa shuban iyo xumada caruurta jirto marka wax weeyaan xilliyadaas oo kale aad bay badan yihiin hadda xilliga lagu jiro laakiin hadda xilliga nimankan joogno waqtigan bisha nimankan ku jirno waxaad moodaa inay xanuunadii waxoogaa mataqaanaa iska degan yihiin patient falowga ama bukaanada nagu xidhan inuu adeegaynina ay iska dhexdhexaad yihiin guud ahaan cusbitalkan Shinile oo dhawaan muddo kooban adeega bilaabay ayaa hadda ku socda si xawli ah wuxuuna ka mid yahay cusbitaaladii isbedelkii kadib laga hirgeliyay deegaanka isla warbixinteena ayaan ku guda jirnay wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa maanta casuumad afur wadareeda u sameeyay shacabka muslimiinta ee danyarta ee ku nool caasimadda dalka Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka ayaa afur wadareedkan waxa kala soo qayb galay culimada diinka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan isagoo halkaasina ugu qaybiyay raashinada quuta daruuriga isla markaasina afur wadareedkaasina u sameeyay bulshada danyar oo ku nool caasimadda dalka
ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa ku guda jira in uu casuumado kala duwan oo afurwadareeda u sameeyo dadka muslimiinta ee ku nool caasimadda dalka ee Addis Ababa kuwaasi oo ka kala yimiday guudaan barakacayaasha dadka ka soo qaxay wadamada muslimka iyo sidoo kale qaybaha kala duwanba guudaan akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan inta ayaan ku soo afmeerayna warbixinteennii caawa intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo